الحمد لله وكفى وصلاة الله وسلامه على رسوله المصطفى وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أحبتي في الله خطبتي هراء تنكو الرئيسي وحينك هذا اللي آداب تلوبة هي إلا إلاليه مركي الله يسكدعه ليس خلافه ليس قنصده آداب تلوبة هي إلا إلاليه قار كم بذان كجسوا هذا اللي خطبتي هراء تن قيبتي الله بنيت بان كله مسترين أداب توحى كم ذا دائما وأبدا إن أوقات تكون الدداش صلحا يهشيسكو إنو كفي عيه إن خلاف كاللقو مدحضيك كلام مقنانتا يا خلافك يا عرض اللقو كلام مقنيه مر والبا وحا كفي عن صلحا يا إن ليسو تنازله الله تبارك وتعالى قرآن الكريم كوحي نوغو شيغي markuu ka hadlayay mushkilada guriga iyo xaaska iyo ninkiisa dhaxmarta hadii khilaaf yimaado Allah tabaaraka wa ta'ala wuxuu yiri wa in imra'atun khafat min ba'liha nushuzan aw i'rada haday haweenay ka baqdo ninkeeda xaqiisa sarayn iska weynayn iyo diido iyo inuusan rabin لما لها الله تبارك وتعالى إنه هشيان وإسو تنازلان صلحا إيه إسو تنازلان بان خير بدن بو ربي تبارك وتعالى نفتي بني آدم كاسة وحا لغو حادريي وحلي لهذا لحجعلو يبخيل لما إيه إنه إسان تنازلين وحي كسو دكتي سيدا كسو كان حديث النبي صلى الله عليه وسلم آيات وحي كتمت حاسكي نبينا صلى الله عليه وسلم سودة وداء وينيت مركي داء ذو ويناتي كدبا وحي كبقضي إنه نبي غفره صلى الله عليه وسلم مركز وحي أسوه تشيدي سي رسولك إلهي وهي فرن إيه سو هبينكي آد إيمان لهيدنا عائشة كوريج محايا لي waxay rabtaa in ay ka mid noqoto xaasaska nabiga sallallahu alayhi wasallam ee jannada wax loo dhiga male aayadana marka soo degtay labadooda midna dambi iyo dhib ka soo gaari maayo inay isu tanaazulaan oo mid xuquuqdiisi ka tanaazulo ka kale u tanaazulo saastaradeed baa fi sahihayn ummul mu'miniin Aisha waxay ku fasirtay aayada waxay tiri waa haweenay nin la nool oo uu qabay wada joogan oo ninku uusan rabin oo dhibsanayo oo kadibna xuquuqdeeda qaar kamida uga tanaazulaysa suusan u furin ama han noqoto habeenkii loo iimaanay ama han noqoto xataa biilkii iyo masruufkii uga tanaazulaysa wasulhu khayrun macnaha saa laga wadaabay tiri waa tanaazul laakiin aayadu qoyskay ka hadlaysaa qoyska macnaha waa ka gudaweyn والصلح خير مركو الله تبارك وتعالى هشيسك إيه إن ليسو تنازلاي مرول بخير باكو جرا ساستردد بعلماء وحي لهذان أحكام الشريعة السيد كيد وصلح وإن ليسو تنازل وضدك إسهياي أي إسفهمان أيقو تفاهمات سميستان من حقوق دي سكت تنازلك كذا سوتشي تمو وحقا أي بيقو وحوضا دميستان بدل كي لكلام غنانا الاسخلاف لها أما لك لتقي لها سيدنا دانت صلح مر والبخير كجرا سيده قرانك الكريم كي نوت الماب اسل ايات waxay tilmaamaysaa inaad sulh qaadato oo xuquuqdaada ka tanaazush waxay u baahan tahay dagaal iyo dadaal dheer inaad naftaada la gasho laana laftu waxay ku amraysaa waxaaga ku dhag waxay ku amraysaa wax iska celi waxay ku amraysaa ha tanaazulin waxay ku leedahay hadulloobin waxay ku leedahay waxaaga ha ka tagin waxay ku leedahay wax iska celi oo xudiratil anfusu shuh seed ku gaari kartaa inaad naftaada bakhaylnimada iyo shuxa ku jira la dagaalanto oo dagaal adag aad gasho ayaad ku gaari kartaa wama yulqaha illa alladhina sabaru
wamaa yulaqaaha ilaa duu xadin cadiim. dagaal adag nin galay iyo ruux galay baa gaadhi karaya hawshaa iyada. waxaa kuugu kaalmayn karaya tanaasulka qodobo ay ka mid yihiin mar walba ha isgarsiinin. mar walba ha isgarsiinin. haddaad cid isqabataan wax isku haysaan, bini aadamka dabeecaddiisu wax weeye inuu isagu isgarsiiyo, mar walbana ictiqaadiyey in isaga laga gardaran yahay isaguna gar leeyahay. mushkiladuna waa halkaa. taa beddelkeeda waxaad meesha soo gelisaa mar walba inay suurtagal tahay inaad adigu tahay daalim, inaad adigu gardaran tahay, ruuxa kalena aada dulminayso. ixtimaalkaa soo geli meesha, waa suurtagal. oo imisaan aragnay keesas laysku haysto oo ruuxa dulmiga tirsanaya ay afka abur ka sii daynayo oo aad moodo in wixiisii oo dhan la baabi'iyey, laakiin qadiyada marka la xaqiijiyo la baadho laga baaraandego ay soo baxayso inuu daalimiyo laga garleeyahay. saas daraaddeed way kaa fududayni markaad tidhahdo war waxan waa suurtagal, in layga gar leeyahayna waa suurtagal, inaan gar leeyahayna waa suurtagal. ixtimaalkaa markaad meesha geliso soo geliso mar walba aadan isgarsiinin, waxoogaa waxay kaa fududaynaysaa in aad muxuu ahay ku fogaato khilaafka. waxaa kaloo kuu kaalmaynaya inaad ogaato mar walba in khayrka iyo wanaaggu ku jiro dadka iyo cidda ku khilaafsan inaad cudurdaar u raadiso, tuhmada iyo malada xun meesha ka saarto, hadalkooda iyo mowqifkooda tafsiir fiican aad siiso haddaad u heli karto. maxaa yeelay musaayadaadka iyo mawaaqifta iyo hadalkoo la buunbuuniyo wuxuusan qaadi karin la saaro waa waxyaalaha mushkilada sii adkaynaya oo sii abuurayay ka mid tahay. sidaas daraaddeed dadka tuhmada ka daa, waxaan jirin waxa ku dhisin. allah wuxuu leeyahay tabaaraka wa tacaala mu'miniintiiyow ka fogaada tuhmada qaarkeed, malaha qaarkii waa dembi ah. nabigeennuna wuxuu leeyahy sal alla alay wasalam iska jira maluhu waa sheeko iyo war midka ugu been badan waayo. maxaa yeelay shaydaan baa afuufaya, waxaan jirin buu kuu sheegayaa, markaasaad run moodaysaa. salafkiina waxaa ka sugan ruux muslim oo walaalka ah hadal ka soo baxay meel wanaagsan ku xambaar. haddaabaad u heli karto macno wanaagsan, 100 macno ayuu qaadan karaa hadalkani. 100 macno mid wanaagsan iyo 99 xun buu qaadi karaa. halka wanaagsan ku xambaar, walaalkaana cudurdaar u raadi. waxaad tidhahdaa waa suurtagal, shaydaan baa ka tan badan karaa, isagoo xanaaqsan buu yidhi, wax buu ismoodsiiyey, waa khaldami karaa, aniga laftaydaa khaldami karaa. macaadiir raadi, dadka u cudurdaar sidaad adiguba jeceshahay in lagugu cudurdaaro. leanna waxa weeye dunuubta ilaahay laga galo kuwa ugu adag bay ka mid tahay in dadka muslimiinta la iska tuhmo. cabdillaahi bni cumar xadiidka xasanka ee culimmada qaarkood taxsiininayaan wuxuu yidhi waxaan arkay nabigeenna sal alla alay wasalam oo kacbada tawaafaya, kacbada ku wareegaya, oo leh ma atyabaki wa atyaba riixaki, alla udgoonidaa oo udgoon badnidaa, ma acdamaki wa acdama xurmataki, weyni badnidaa oo xurmadaadu weynaa. markaasaa nebigu wuxuu uhi kacbaduu ku wadaa, ilaahayga nafta muxamed gacantiisa ku jirtaan ku dhaartay, la xurmatu lmu'mini cinda allahi acdamu xurmatan mink, maaluhu wa damuhu wa an yudanna bihi ilaa khayran. xoolihiisa in lagu qaato xaqdarro, dhiiggiisa in xaqdarro lagu daadiyo, in waxaan khayr ahayn loo maleeyo, intuba waxay ka weyn tahay kacbada xurmadeeda, way ka xurmo weyntahay. marka dadka ha iska tuhmin, hana iska malaynin. way kuu kaalmaynaysaa sidoo kale inaad tanaasulka baratiyo aadaabtiisa. maqaamaadka marka la soo ururiyo warka gebagabadiisu waxa weeye 3 martabo weeye. martabad way kuu bannaan tahay, waase laga fiican yahay. martabadna way fiican tahay oo fadli iyo wanaag iyo karaama ku jirta. martabadna waa xaaraan oo kuma bannaana. martabada koobaad ee kuu bannaani wax weeyaan laga safiican yahay inaad xaqaaga qaadatood aargoosato, laakiin intii lagugu sameeyey aadan ka badinin. wajazaau sayi'atin sayi'atun miluha, intii oo kale.
فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به انتي ليدن عقابي ليدن كسمي بس هكسي هذين وقصاص وعدالة عدل واحد عدل واحد انت هداد كو اكيستودن كسيادين دنب مليهد اجرنا مليهد حقاقي بقادت ولمن انتصر بعد ظلمه فاولئك ما عليهم من سبيل جيد ما جيرو لوغوغو ماغو جيد ما جيرو لوغوغو ايديو waxaagi hadaad qaadato way ku banaan tahay jaiz mashruuc mushkila male laakiin sharti maxaa lagu xidhay sharti waxaa lagu xidhay almumathala mithli inti oo kale hadaad ka badiso ya oo markuu ku yiri tuug baat aad turi tuug doofarat ظالم baat ay markaa nabigu sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri labada ruuxa ay tamay waxay isiyidaahdaan ka bilaabay baa dambiga iskale ayda bilaabay illa kala dulmiyay la caayay lagu bilaabay inuu xad gudba mooyaan oo marka haduu xad gudba dambiga qayb uu ku leeyahay waxay su'aashaas weydiinta tahay muhiimka ah say suurtagal ku tahay intaadii bas inaad qaadato oo aadan ziyaada la imaanin waa hawl adag سأصدرت فضيل بن عياض أي مدي سلف ككمل رضوان الله عليه ورحمهم وحيد هدو كوي ما دونين كشجري وحد كتر هذا نيو عفي باب كيسوا باب التقوى إلهي كبغوا إسكعف هدو كي هذا قلبي كان أقولين وحد كتر هذا هدبا هدات فهم يسو إنتادي قوسن كرتودن كسيادين كريم وكوكا هدات كرانيس هدات كري كرت هدات كري صوما عفوga baabkiisa waasic halka ku gaabso markaas saas daraadeed marxalada hore martabada hore taayada way ku banaan tahay laakiin bi sharti almithliya shart alqisas martabada labaadi wax weey waa martabatu dhulmi oo shariicadu xarimtay oo ah inaad argoosato wixii lagu sameeyay ku sameeyso siyaadada la timaado oo aad wixii ka badbadiso أما عيد أن وحبابا كوغو سمينين آد كو حد قدبتو تاسي والظلمي شرعتنا وديد وأنا بدأ آيات ربي كله تبارك وتعالى إنما السبيل على الذين يظلمون الناس كو ضد كالظلمية أما الظلمي كو بالله أما مركي أرقو صنيان سياديو سيادا اللي ما داي كو واسا كوركودا تشيدكو يهي عديدكي حرجكي إيدا كو واسا إسكالي إلهينا تبارك وتعالى عذاب حنون بضنبو الدياري ذاتك النوعاس سيداس درادد مرتبة الظلم جاء نين الله ما أقوله لأن الله إلهي تبارك وتعالى نفتي صظلمي وكحرم أدو مضى نحضنا وكحرم ممرر نكون نقن ميسو إيو دليل كون عذر دار كون نقن ميسو واللي يقاله الرئي تهدي لقاقه الرئي أما سامح أما إنتي كو قابسو عدالة ده دافن مرتبة دا سوى مرتبة دا عدل جواه إن الله يأمر بالعدل مرتبة دا حكتاي أقدم بيساي وحويان ومرتبة العفو والصفح وانا فضيلة شريعة تاسي إنا وقويا تاسي إنا قعدستي تاسي إنا أمرتي إن أتستعفدو إن تسامحدو إن أتفرحك قاتو وانا مد القرآن كو أب أماني السنة النبي قنا أمانتي صلى الله عليه وآله وسلم فمن عفا وأصلح فأجره على الله روحي عفية oo wixii isaga walaalkii u dhaxeeyayna hagaajiya oo tanaazula ajirkiisa ilaahay korkiisu ku leeyahay u fiirso quraanka sidoo u cabiray ajirkaaga adoonka kuma lihide allah baad ku leedahay soo farqi weyn uma dhaxeeyo in ilaahay korkiisa aad ajirkaaga ku yeelato in adoon daciifa ku yeelato ilaahay baa ajirkaagu saaran yahay ku leedahay cafiga qaado الله تبارك وتعالى آدوتا أمر إن ذلك لمن عزم الأمور الرواه وين مهمك اللي تشعلي هاي أبال كوين للقاها لي كم تروح إنه صبره أو عافيه أو مرتبة قات هذا سيدا يشو أو مرتبة قدام بيس قادت أو مد الله أمانية وهذا ليس أبال الدنيا آخر بله كرامة هي شرف الدنيا هي كرامة هي شرف آخر نبينا صلى الله عليه وسلم وحوليه الضون عفي وعفيي عدب وجيستي إلهي تبارك وتعالى وحو أجو سيادية عزي إيا شرف أجو سيادية
ما جرى أدون عد عفيه سامحة إلا عزي شرف كرامة إلهي أدونك آخر بأقوسي هذه نبينا صلوات ربي والسلام عليه وحكسوا إن ويلكي قبرديس الشيء إيادك أوتش على حسن بن علي بن أبي طالب أي النبي صلى الله عليه وسلم أرنكي سكها الله وحوش النبي صلى الله عليه وسلم يرويل كيجني وسيد النبي صلى الله عليه وسلم ويل كيجني وويل شرف له مركا ويري هي حسن الموه وحو النبي صلى الله عليه وسلم إلهي وحو كو إصلاحين دونا أو كو هشيسين دونا إساق السبب تيسا لبكو حوض أو مسلمين تكمد أو وين أو دقال لميه إلهي والصواب وقرد دونا ديقاسي إنو استاغو مؤمنين المسلمين كلا نبات قلان فتنة دون الدكتو نبي وكسي والرمي انتو صندمان دعددا سنة وحي دعدي دمشدي النبي صلى الله عليه وسلم مدة كذب ريشام إيراكوفا مركي دقانكم مدة السعودي حسن أبيه علي بن أبي طالب من الدلي حلك أولو ريقي مركي بقرقرتن بو قال معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه وأرضاه أيو حلكي أقد تنازلي سيدا سانا إلهي تبارك وتعالى السيد كقدق الدنيا آخر مركا تنازشو مصلحة أمد أتنازشو فتنة يدبك فضودي أما يوصن إيمان أتنازشو سيد باته شرف بعد لده الدنيا آخر لكن هداد أرقو سطوط فعل تنتميا شرف كان مقاريس وميد الله بعده انت أتصبر يسو أو دول قادنا يسو حق إلهي تبارك وتعالى عدك الدفاع دا لغاقة سمينيه إلهي باكو دفاعي ملك بالغو صدري وحاسقا وإمام أحمد مسند كيس كوري علماء قاركود حسن لغيري بإلي الحديث وحوليه هاي وحاوصو قالي نمبا يمد أبو بكر يا النبي قو وذا تشوغا صلى الله عليه وسلم مركاسو وحو بالله بي إنو أبو بكر عايو عي أفلقادو داميي أبو بكر نوى آموسيه وما تشوابيه النبي صلى الله عليه وسلم أرنتا وأبوغي وأنا موصودي آد بؤتش عليستي عيدا ما هو وحوتش عليساني لكن وحو لعد شبي صبر كأبو بكر يسيدو أدو القاضني ننكي عيدي وكسي بدبدي وسيودي أبو بكر أدو القاضي وقرد مال كدبنا عيدي قار كمدو كتشوابي النبي صلى الله عليه وآله وسلم intuu cadhooday buu fadhigii ka kacay waaba iska tagay Abu Bakar waa ka daba tagay nabiga sallallahu alayhi wasallam waa dareemay laana uu yaqaanay saaxiibkii waay uu garanayaa dareenkiis waa ka daba tagay wuxuu rasuulka Ilaahay ninka waa caayay waadna fadhiday markaan hadalkiisii wax kamida ka jawaabayna waad cadhooto waa kacday see wuxuu jiraan wuxuu nabigu sallallahu alayhi wasallam Abu Bakar intaad aamusnayd ملك باكو دفاعي حق إلهي كيمت مركز هذا الكيقار كميدا كتشوابتين الشيطان باصوفر يستوى قوب تيمت أنا قلنا قوب شيطان شوغو إنا مفردية مر من بنبي صلى الله عليه وآله وسلم وفيرسو انت أتصبر يسو أتكيسان يسو أدعفين يسو سامح يسو إلهي حقي سعيد باكاد دفاع يسا وقالوا قرب تاقية لكن مالين كاد يسا سو تاكتو ترادا أنا حقيقة قوصانية دفاعي مركا ويشو وكبحيا طبعا ويكوبا انتهي سان هريبا وشيغني لكن ولا في عيتي في عنيد باد كتغت سيداس دراديد وان برنا آداب تعفقه سامحادا قججعدا اسحيسيغا دغالكا غانكا هدلكا عيتنكا افلغاددا ديباتوينكن waxan socday waxa keenayay wax weeyaan aadaabtaasi khilaafka iyo saamaxaad iyo dulqaadkii baynaan baran ama marar far badan ay shaytaanku ina garab marinaya كقاد درسك قيمها بدن قصة النبي الله يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام ولا الذي بعد الظلمي أسقوا ير أي إنتي قادم بعيل كردين كما ينهارين ويقتين الضوني ما يؤيب سدين تفاسير تميت كبير سدو تلمامي الضوني ما أسقوا الضون أو كلا أبو قربة قال دل قربة يوم ذكروا أقعن قال أسقوا على الضون سنة يوم فتنة gurigu joogay ba fitna kaga dhalato naagtii uu gurigu joogay ku noolay ayaa damac ka galayo imtixaan buu maray kaligeed kuma gaabnaanina dumarkii magaalada oo dhan ba isugu yimid kayd iyo balaayo la galayo imtixaan buu galay nabiyullaahi yuusuf alayhi wa ala nabiyina salatu wasalaam way kasii tagtay oo xabsi buu galay
muddo xabsiga ku jiray intaasoo dhan waxa aabihii baa rafaaday yacquub calayhi wacala nabiyina asalaatu wasalaam oo indhabeelay intaasoo dhibaato ah walaalihii mariyey ayaa maalintii dambe waxay u yimaadeen asaga oo wasiir ah oo waddanka dhaqaalihiisa oo dhan gacantiisa uu ku jiro uu maamulayo ma ay garanayaan waxay ku yidhaahdeen ayuha alcasiis ninkan madaxda ahow annagii ehelkanagiiba dhib baana gaadhay raashiinna na sii waa u calaacaleen dhib bay u sheegteen wuxuu ku yidhi ma xusuusan tihiin markaad yuusuf dhibka ku samayseen markaasay baraarugeen waxay yidhahdeen ma yuusuf baad ma yuusuf baad wuxuu yidhi waa yuusuf baana kani garab fadhiyana waa walaalkay waa wiilka isku bahda ahayeen markaasay bilaabeen inay cudur daartaan ilaahay baa naga kiin doortay ilaahay baa ku doortay annaguna waa khaldanayn yaa khalad baan gallay wuxuu ku yidhi nabiyullaahi yuusuf calayhi wacala nabiyina asalaatu wassalaam laa tahriba calaykum alyawm canaan ma lihidin maanta yaa hadal xun iyo canaan midna laydin dhihi maayo waxba ha ka baqina intaa muusan ku gaabsanina waa u duceeyo wuxuu yidhi wixii aad gasheenna ilaahay ha idiin dhaafo allahu akbar intaasoo dhib ah ruux kuu geystay oo adoo awood leh oo dawlad ah kuu yimi beddelkaad ka argoosan lahayd u ducee canaan iyo hadal xunna haba u quudhin xataa markii waalidiintii ay yimaadeen oo masar la isugu yimid eedda wuxuu saaray nabiyullaahi yuusuf calayhi wacala nabiyina asalaatu wasalaam wixii isagiiyo walaaladii dhex maray eedda shaydaan buu saaray ya shaydaan baa aniyo walaalahay dhexdannada fasaadiyey qalbigooduu ilaalinayaa shaydaan baana ku xambaaray ficlan soo ma aragti saas daraaddeed duruus cadiim ah ayaan qur-aanka iyo sunnada nabigeenna iyo hadyiga ka baranaynaa isasaamax dulqaado cafi dadka malaha u wanaaji qalbiga saafi uga dhig sidaasaad adiguna nolol fiican oo qiimo badan adduuniya aakharaba ku noolaan ku nabadgelaysaa bulshaduna isku jeclaanaysaa saluu waslimuu cala khatami alanbiyaai walmursaliin allahuma salli wasallim wbaarik cala cabdika warasulika muxamed wcala aalihi wasaxbihi ajmaciin وارض اللهم عن الصحابة والتابعين وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث ردنا إليك ردا جميلا اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك